in Georgia ka soo jeeda ayay u suura gashay isagoo adeegsanaya fartiisa inuu jiido doon weyn. Ninkan ayaa u diyaarsan in uu galo buugga dhacdooyinka adduunka ee Guinness World Record. Ninkan reer Georgia ayaa waxa u suura gashay in uu jiido doon 200 tan ah isagoo adeegsanaya fartiisa dhexe ee gacantiisa bidix, iyadoo ay goobta joogaan daawadayaal badan oo dhacdadan markhaati ka ahaa kuna duubtay kaamirada moobiladooda gaarka ah. Doontan oo magaceedu ahaa Tamara 2 oo dhowr mitir u jirta xeebta ayaa aan dhaqaaqin ilaa Prostomashvili uu dhankiisa u soo jiido. Waxaa u suura gashay inuu dhaqaajiyo iyadoo dadkii goobta soo xaadiray ay aad u qaylinayaan una muujinayaan taageero. Guddiga Records ku cusub diiwaangeliye ee ku dhaqan gudaha Georgia ayaa hoosta ka xariiqay in ninkani uu xaqiijiyay oo uu gaaray rikoodh cusub aanay cidna ugu horeyn, isagoo doon aad u culus ku dhaqaajiyay fartiisa. Guddiga ay ku midaysan yihiin ee matala rikoodhiska cusub ee la dhigo ayaa sheegay inay qorsheynayaan ay lana xiriirinayaan buugga dhacdooyinka adduunka World Records heer caalami si loogu diiwaangeliyo rikoodhka cusub ee ninkanu dhigay buuggana loogu xardho.